السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتي إذا شرفت لي سو دوادا قعمة فرن سو نقد وناكسن ما أنت محين أوضا أنا وديقة كويزين كيك أما دولشو laga sameeyey sweet potato ama bataatada macaan caafimaad leh aad iyo aad maasha allah aad ka heli doontiin dhadhankeeda iyo tastigeeda iyo carafteeda soo carfeyso maasha allah inaba caadi ahayn aynoo wadaa maantay waxaan rajeynayaa inaa ila faa'iidaysatiin soo dhawaada gacmo furan maasha allah ujeedin siduu jilic u yahay sidii doolsho Soomaali camal ma sha Allah u dhadhamaya xataa ma bis dhaysi geedkana sweet potato lagu daray runtii ma sha Allah kalarka kaaga dan orange u ekaaday ma sha Allah because waxa keenayo bataatada macaan kalarkaas u yeeshay haddana waa kana anagu bilaabayno inta u baahan waxa waay butterkaas aan soo dhalaalinayo 3 xabo oo kun qaado baking powder qaado vanilla baradhadii macaaneed oo aan soo kariyay watasaa ujeedeen waa kariyay ovenka waliba ku soo dubay inta aluminum ku duubay hadaa rabtid biyo ku karin kartaa laakiin waxay fiican tahay oo nutritionkeeda ay haysanaysaa marka aad ovenka galisid oo aad biyaha ku sameyn digsiga waa ka sabatarka ku soo dhalaalinayo ujeedin intuu soo dhalaalayo mashiinka cabitaanka ku qasanaya hool fududaysi cake maanta la qasi jiray maanta la xurxurbin jiray shaqaas dhan waa laga soo tagay hadda ukuntiga ku soo shubtay mashiinka cabitaanka kadibna waxaan ku darsanayaa bataytada qolofteeda ha ka fiiqinina ma sha Allah ha ka fiiqinina qolofka hal koob oo sokor ku soo daray halkaasna waxa waaye half cup oo yogurtka sokorta la'aanta u baahana wakaa oo ku soo daray alxamdulillah ma sha Allah batarkii aan soo dhalaaliyay saasuna noqon rabaa insha Allah inta saliid ku darsan lahayd fadlan subaka dhalaasada ku darsada wakaa soo shiidaya soo jeedin 2 daqiiqo straight shiidaysa waxaa la rabaa si fiican inuu shiidmato baradhadii ukuntii sokortii ee shiidmato burburto ala rabaa ma fahanteen kadibna saas ku wadno akaa waqtiga gali hasii ha ordin waxba ma sha Allah markaa soo shiiday waa ka soo dejiyay ujeedin ma sha Allah ukuntii iyo subagii iyo wixii oo dhan waa isku shiidmadeen baaqlo ku soo gadisanaya shaqshaqa soo qaadanaya markaas waxaan ku soo shubayaa 2 koob oo bur ujeedin 2 koob oo bur iyo hal qaado weyn baking powder iyo waxa kale ku darsanaya vanillada oo qaado yar arki doontiin insha Allah atasa kadibna waa shaqshaqaysa burka daa shaqshaqin wuxuu ka yeelanayaa couscous cake-na haduu ka dumaya ma fahanti marka xoogaa haaf ku shubaya marka hore burkan ku dul qasaa marka ku qaso oo si fiican isku dhex galo oo asdoo couscous yar ma lahan qabanaysa inta kala ku shubaysa saas ku fiican tahay hadaa marba ka qasaysid steps ka hadaa martid kaama halaaba insha Allah yaamina samee insha Allah spatula badan isticmaala hadaa haysan xataa miikaha oo falaadka midka aan gudnayn miika waxa jiro aan gudnayn miikahaas taa ku walaaqan kartaa insha Allah keega inaba caadi ahayn ka soo baxayo saxan kana soo qaatay saliida mar hore soo mariyay iyo bur
si uusan ugu dhegin oo hadhowdi uga soo baxo. haddii kaleeto haddaadan marinin saliid iyo bur waxa waaye hadhow markaa ka fujinaysid waa ku dhagayaa, ma fahanti, wax kaaga bixinayana ma lahan. kadibna saas u ka garaac dhulka bac ku sii. ovenka waxaan sii daatay 350 oo inuu hore kugu sii daarnaadaa. kadibna waa gelinaysaa 25 daqiiqo kugu soo dhacaya. waka keega inaba caadi ahayn baa kasoo baxayo maasha Allah oo caafimaad leh, ilmahana ku cunayaan, qofkii saacateynaya sidoo kale uu cuni karo, daily u samaysan karta maasha Allah. halkaad soo gaarteen waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum raxmatullaahi tacaala wabarakaatu. fiidiyowga xigo meel dheer ha la gaarsiiyo insha Allah.